أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما مولانا بقية الله الأعظم في أرضه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة والأخوات، عاو تاريخ ذو أي كوبا هاي لباتن يشنتي بشي لبادا كون لباتن لبادا halkan waxaan rabnaa inaan ku diyaarino barnaamij aanu ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. barnaamijka isaga ah oo aanu ugu magac darnay waxaanu idin la nimid xaq ayaanu idin la nimid ji'naakum bil haqq. barnaamijku waa silsilad in muddo socon doonto. waxaan rabnaa inaan ugu jawaabno kaahin min kahanati al-wahabiyya oo xamar ka hadlay ka isaga oo aad iyo aad u isaayeeyay mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ee loo yaqaan culamaa shiica a'la Allahu maqamahum fi dunya wal aakhirah. kaasi waxa la yiraahdaa Mustafa Ali Caanood wuxuu fadwooday been aan sal iyo raad lahayn. waxaad ogtihiin mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khaasatan madhabka mawlana Abu Abdullah Imam جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه يهي أقدم مذهب في العالم، مذهب كي وجهر ريي ومدى المسلمين تأسومر إنه يهي. وأنا مدكي ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومدى محمدية كبر رجيي إنه قبصدان. كايسا كاهن كابا وحي يري شيعضو وحي عايان جبي أهامبا عمر يا أبو بكر يا عائشة يا حفصة يا عثمان. been buu sheegay oo midda koobaad uu yiri Aisha la caayay oo qof Soomaali aba caayay waa taxadaahu. waxaan rabaa inaan ku horeysto inuu keeno waa been. arintan kale ku saabsan Umar iyo Abu Bakar, نحن لا نذهب إلى كتبنا أنه مدونين إن المذهب كان نجي كتبنا ذا أنا أدنو، لكن وحن ربنا بل إن نح استاجنو في كتب أهل السنة والجماعة يوحى قرآن أبو بكر يا عمر وحى أي كي هذين. مصطفى حلا هل مسألة مسألة waxa weeyo adduunyadu way hormartay maanta waxa jira zoom waxa jiro in live loo wada hadlo in la munaadaro wa atahaddahu waxaan leeyahay oo aan ku horeysan haya in uu soo galo aan wada xiriirno zoom ka oo aan ka wada hadalno annaga on meel kale anigu aan xujaj u aadayna fi kutubina ay kutubtiina nimanka iyaga aakhirka umrigooda ugu dambeeyay rasuulullaahi Muhammad umrigiisaan leeyahay ugu dambeeyay wixii ay ku kala dhaqaaqeen iyo wixii ay ku yiraahdeen. taasi waxaan rabaa inaan ku sii dheeraado ma rabaa inaan halka kaga baxo. arinta labaad ee uu yiri Aisha iyo Hafsa wax laga sheegay khaasatan Aisha ayaa wax laga sheegay waa been. hal kaliib oo aanu ku taacaninayna Aisha ma jirto. hadday ka fursan weydo Aisha ayaad ka bari noqoteen oo baraa ka qaadateen Sooma walaalow kutubta ahlus sunnati wal jamaa ayay waxa ka buuxo ahadiith sanadkooda biya kama dhibcaan oo aad la yaabayso وعائشة أي كدرتي زوجين كرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيا أولاد رسول الله محمد خاصة إبراهيم أو أي كتل مانتي إنه يهي قرع أو قبضة يدي اللو يقان مارية القبط رضي الله عنها وعليها السلام إن أي إساء أي سي حديثة إيضا أنا كتبتي إن مسانيد دينا أي كحر أنتهي أو أي كقر أنتهي وسند كذا الله صحيح يالي إن أي إبراهيم تري وعلاقيت وقرع وأي تري قبضة وحاكرنا لي nin la yiraahdo Jurayj ama Jurayh loo yaqaano ayaa ka dhalay. arintaasi waxa weeye waxaan rabnaa inaan soo bandhigno qodobadii iyo lambaradii iyo kutubta ahli sunnati wal jamaa meesha ay kaga qornayd arinta iyada. waxaad ogtiin ninka isaga ah in uu fadwooday bulshada Soomaaliyeed aktarkeedu in ay yihiin gaalo dhammaanna la dili karo. waxaad ogtihiin fadwooyinkii isaga ka soo baxay in lagu dilay malaayiin kamid ah
soomaalida oo lagu gumaaday oo eber laga dhigay idan waxaad ogtihiin qoys Soomaaliyeed oo maanta meel degan oo Mustaf uusan ka qabin dakana ma jirto hal qoys oo Soomaaliyeed ma jirto annagu haddaanu nahay mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaanu nahay qoom aan guub yeelin ballanta ay qaadaan ahdiga iyagu ay galaan aan guub yeelin oo wacdigooda iyo waciidkooda midna aan guub yeelin oo sida ay tahay u oofiya ayaanu waxaanu leenahay arrinta iyada haddii aanu ku noqonnay kitaabka qur'aanka ah haddii aanu ku noqonnay axaadiista rasuulullaahi Muhammad ee asaxday sallallahu alayhi wa alihi wasallam intaba Mustaf Ali Caanood waa nin ay waajibtay qatligiisa oo lagu dili karo xilli iyo xaramba haddii uu sujuudsan yahay waa la dili kari haddii uu rukuucsan yahayna waa la dili kari haddii uu qira xitaa kitaabka qur'aanka gacanta ku haya waa la dili kari maxaa yeelay waxaa waajibay dilkiisa wuxuu dilay ummad muslimiin ah oo uluuf ah oo fadwadiisa lagu dilay annagu haddaanu nahay mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhalinyarada Soomaaliyeed ee u baahan inay Ilaahay la kulmaan jalla wa ala ee isaga meesha la jooga ee maanta fursadda haysto waxaan leenahay war fursad baad haysataan waxaadna helaysaan annaga agtaanada wax aad ku faraxdaan Ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri jalla wa ala fala wa rabbika la yu'minuna إلهي بنقول دارتي مرهمين هيان جل وعلا ربك مرهمين هيان سيدك محمد هو حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى وحا إيجا نحظو ضاء هذا أديك أي كاغسو حكم تغانو أي كاغسو لابتان فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وحواجب إطاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي القرآن في كريم فوحكو يري وإن تطيعوه هديئة تطيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تهتدوا وتهنون إيسان إطاعة رسول الله محمد قف خلافه رسول الله محمد سيد عمر بن الخطاب يوحي اللم إذا هديان يوالي كتهم يستو وحرمنا بل إنا دور كتابه في كتب أهل السنة والجماعة قيب تلباد الدنباء عن صوبا دقنو عمر بن الخطاب واحد وكتهم يستي رسول الله محمد إسا قراه ديسا هذا الكتاسو بحي عمر بن الخطاب iyo hadalkii kooxdii kale ee acdaadi rasuulullaahi Muhammad ahayda Abu Lahab iyo Abu Jahl iyo Waa'il iyo ragii iyaga ahayd ogtiin Ubay iyo ragii iyaga ahaa wixii ay yiraahdeen qoraaheeda afkooda ka soo baxday iyo afka Umar wixii ka soo baxay baynu isbarbar dhigaynaa koodi aday badan koodi aflagaada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayaa inagoo milicsanayna quraankii iyo xadiidkii saxiixa baan isbarbar dhigaynaa طيب هذا هو الليال إلهي القرآن كذا كريم كوحو كيوري كتب تايجا وحان رمنا كليب كان قيم تيسد بقى ينقصوا بندق دونا إيجا صوت إيجا صورة سياد واركتان ودوجا فإيدي ستان أحاديث إيجا مسادير أهل السنة والجماعة إيجا تراد توضي إيجا معاجم توضا كحر نان إنما وحك السوقات أي سنعك توضا كأهين إني عمر بونبونيان ويوينيان مويان رسول الله محمد إساءين تأيي نباتة اللوجيس تأيي فلقاتة حلقة فقط نغانا يمجد قبل هامبا لكن مركب عمر وحلقة الشيخ أبو بكر وحلقة الشيخ وإنما كان نمان هو وين وأصنام عبدوه أيجو وأصنام تمر أو تقول باللوكة دوستو كل ماذا حكت جو يقرده إلهي يجي وهال له بإلهي وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر عمري جيسنا وحن الدبي اللي هو بخاري وحن نصوب النجد دونا بالوحى قرآن يا عبد الله بن عباس وحى وسمين جري لبعتدي رسول الله محمد لو جيستي يا رسول الله محمد مركي ويا ري طاعتي إلا إلا أطيع الله تبع رسولك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أهلتي يدا هيد وماشي كبحري تاوا صوب النجد دونا إن شاء الله بقولوا إنه أركي دونا هذا هو الليال وحن كريم كان يركع أمانة أن أوتها قلي بالشدة الصومالية إني كفايدستان وحن رأينا هذا الكهذا جدال دي كعلم قف ولباء وحويان دد كيسي يدد كيسي dalkiisa uu ninka isaga dhibaato u geystay waxa waajib ah xukunkiisa inuusan qof kale uga gorgortamin isagu uu ka fushado dadkii lagu laayay gaalkacyo ee aad ogtihiin caruur yar yar ay ku jireen culimo waaweyn ay ku jireen dadkiisii la laayay dadkoodii baa la jooga meesha isagu uu joogo idan waxa waajib ah xukunka iyaga inaynan cid kale u doonanin barta isagu uu joogo ay kaga oofsadaan ilaahay baad ugu dhawaanaysaan jalla wa ala maxaa yeelay qof walbo inaga inaga mid waxa uu doonayaa waxay tahay liqaha ilaahi jalla wa ala annaguna haddaanu nahay mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxaanu u ballan qaadaynaa wax uu ku farxo
dilkiisa hadduu wax kaga yimaadana annaga ayaa aakhirana la su'aali kumanaan kun oo kitaab qur'aan ayaan u maraynaa qofkii ninka isaga ka fushado wixii uu isaga ku lahaa inuusan gebi ahaanba haba yaraate wax dambi ah qofkaasi uusan lahayn waxa kale oo jira iyadana oo aanu rabnaa insha Allah kaliibada dambe inaan kaga hadalno kaahin min kahanati alwahabiyya kamida oo isaguna nala jooga Nairobi oo Xasan Xuseen la yiraahdo oo xaqiiqatan anigu markaan fiiriyay ajhalu naasi waa qofka makhluuqa ilaahay koonka uu keenay ugu jaahilsan waana qofka ugu khabiirsan xaqiiqatan isaguna dhibaatada uu shacbiga Soomaaliyeed u geystay waynu soo bandhigi doonaa biidhnillaahi albaari adilla waadixa ka isaguna mumathiliinta madrasada rasuulullaahi Muhammad isaa'iyay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lagana raacay waxa loo yaqaano qabaa'il in mar waliba qoys magaciisa uu sheego khaasatan reerka uu isagu ka soo jeedo ama jilibka hoose isagu fangalaha uu yahay uu sheegto jilibka hoose isagu uu sheegtay fangalaha uu yahay isaguna arrinta iyadana mar baynu si fiican yaanu yadna u faahfaahin doonaa waxaanu leenahay qof waliba oo inaga mida han noqdo qof mutamassiga oo ku dhagan kitaabka Ilaahay jalla wa ala iyo dariiqii saxda ah ee rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si uu liibaan Ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri wa man yushaqiq ar-rasuula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira quraanka kariimka qofki khilaafa rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hanuunka inta uu cadaaday bacdigii nuwallihi ma tawalla waxa isaga uu tawalliyay isaga uu raacay baanu annaguna ooga dhigaynaa halka isaga uu raacay umbaan raacsiinayna wa nuslihi jahannama naarta jahannama la yiraahdana Ilaahay wuxuu waan ku halaal micinayna wa sa'at masira waxa baas lahaaday meel loo noqdo waxaanu ognahay cid rasuulullaahi Muhammad ka cadaysiisa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu yiri ayyuhalladina aamanu la tatawallaw qawman ghadiba Allah Ilaahay iyo nabi ku rumeeyo wilaayo wali ha ka dhiganina qoom Ilaahay waxana jalla wa ala qoom aalu bayt rasuulillahi ka cadaysiiyay wali ha ka dhiganina qoom ka cadaysiiyay Fatima az-Zahra salaamullaahi alayha wali ha ka dhiganina caawa cashirkeena inta iyada ayuu inoogu joogi doontaa muhaadaradeena wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin